munaasabadani waxayd mid siyar sara loo soo agaasimay isla markaasina xisbi siyaasadeedka wadani uu ku soo dhaweynayay siyaasiyiin mugle oo ka soo digarogtay xisbiga kale ucud ayaa maanta ka qabsoontay hoolka shirarka ee Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa waxaana munaasabadani ka soo qayb galay badi hoggaanka sare ee xisbiga siyaasadeedka wadani uqaal waxgarad iyo taageerayaal tiro badan intii ay munaasabadani socotay waxa halkaasi lagu soo bandhigay heeso iyo majaajulo badi soo jeetay dadkii goobta fadhiyay intii ay munaasabadani socotay waxa madasha ka hadlay xogayaha guud ee xisbi siyaasadeedka wadani maxamed cabdullaahi urcade xisbiga wadani dhamaantii markaa aqaaday hoggaanka sare kama dhaxay guddiga fulinta ee taageerayaasha xisbiga dhammaantay waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa murashaxii madaxweyne ku-xigeenka xisbiga ucid cabdirashiid xasan mataan iyo salaadiintiisa taageerayaashiisa cid kasta oo taageersan sanoo runtii nin ballaaran oo Soomaaliland oo dhan ka haysta taageero aad u ballaaran aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaa kaloo isaguna halkaasi ka hadlay cabdirashiid xasan mataan oo ah siyaasiga horkacayay taageerayaashani ku soo biiray xisbi siyaasadeedka wadani waxaanu yidhi maanta farxad bay ii tahay in laygu soo dhaweeyo xisbiga wadani imaatinka anime xisbiga wadani aniga iyo siyaasiyiinta kale ee ila socda aanu isu mabda'nahay iyo in badan oo aad gadaal ka maqli doontaan oo ah gobollada dalka iyo laamaha dibadda ee qurbajooga ah waxay ahayd fikir aanu ka midaysanahay oo ujeeddadiisu tahay in dalkan isbeddel ka dhaco Somaliland waxaynu qaadanay waa dimuqraadiyad waxaynu qaadanay inaynu samayno nidaam xisbiyo furfuran dhaqa waxa aad iyo aad u ololeeyay oo taariikhda ku qoran la sameeyay xisbigii kulmiye markii ololaha ku jiray madaxweyne daahir riyaale wuxuu yidhi Somaliland cid u talisay u baahan tahay ee uma baahna cid u abtirsan gabagabadiina waxaa munaasabadani soo afmeeray gudoomiyaha xisbi siyaasadeedka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo sheegay inuu soo dhaweynayo siyaasiyiintani iyo waliba taageerayaashani maanta ku soo biiray xisbi siyaasadeedka wadani waxaa farxad weyn noo dhammaanteen inaynu maanta halkan ku soo dhaweyno oo aynu ku soo dhaweyno qalbigeenna oo ku soo dhaweyno suugaan oo ku soo dhaweyno heeso oo ku soo dhaweyno calamo oo ku soo dhaweyno farxad siyaasiga caanka ah cabdirashiid xasan mataan cabdirashiid madimaha waxaa la socday taageerayaal badan oo aan ahayn gobolka uu ka soo jeedo oo la socday oo ka soo jeeda gobolka Sanaag iyo Sool iyo Togdheer iyo Saaxil iyo Maroodijeex iyo Awdal intaba waxaa la socday si aad ka arkayseen dhalinyaro firfircoon iyo haween ka tirsanaan jiray taageerayaashiisa ka mid ahaan jiray oo ay ku wada jireen xisbigii hore dhanka kale gudoomiyaha xisbi siyaasadeedka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro waxa uu si adag uga hadlay arrimaha diiwaangelinta oo wakhtigan ka socda Somaliland isagoo oo sheegay in una xisbigiisu diyaar u ahayn in mar kale ay doorashadu dib u dhacdo waxaana uu yidhi waxaa ka warqabtaan in dalka ay ka socoto diiwaangelinta waxaa la isku daday in la dibidaabiyeeyo oo aanay bilaabmin hase yeeshee ilaahay mahadii arrintaa waynu ka guulaysanay waxaan ku ammaanayaa go'aanadii adkaa ee komishanka waxaan ku adkaanayaa isqabsiga gacmaha ee axsaabta waxaynu ka baxnay tijaabadii waxaynu tijaabinay inay guulaysan karto diiwaangelintu waxaan shacbiga Togdheer ugu mahadnaqayaa iyadoo lagu jiro xilli adag oo jiilaal oo duruuf qalafsan inay go'aansadeen
inay ka midho dhaliyaan inay guulaysato diiwaangelintu dhammaan shacbiga reer togdheer aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waxaan u haystaa inaynu gaadhnay guul qaran sababtu waxa weeye waxaynu ka caban jirnay in boob jiro in lagu noqnoqdo doorashada waxay caddeeyeen oo ay ku guulaysteen in la qabto qof kasta oo isku daya inuu 2 jeer ku noqdo taasi waxay badbaadinaysaa in doorashadeennu aanay noqon mid lagu noqnoqdo iyo mid lagu shufto toona waxaan ka digaynaa sabab kasta oo keeni karta in dib u dhac ku yimaado doorashada Khadar Kaafi TV-ga caalamiga Somali Cable TV Hargeysa